Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa qisadii buuggii 5 dhabaalo jacayl ah. Qisadii koowaad kuna soo dhowaada. Weligii himiladayda waxay ahayd buu yidhi inaan guursado gabadh aqoon-yahanada ah oo ah jaamiciyad ah oo si habsami leh aan isu fahanno halganka noloshana igu garab istaag. Dhab ahaantii himiladaas way ii rumowday, balse ayaan darra ayay ii ahayd. Waxaan guursaday gabadh weli fahankeedu waxay igu laaban yihiin. Waa gabadh 4 sannadood ku soo qaadatay kulliyadda Suudaan si ay u soo barato hal xirfad taasoo ah qaabka ay uga gacan sarreyn lahayd ninka ayna uga amar tegi lahayd usoo baranaysa xirfadda. Cawaysta intay baxda ayay ciyaarta golofka soo ciyaartaa. Haddii aan warsado goobta ay ku socoto iyo goorta ay soo noqonaysana, dibinta hoose intay qaniinto ayay igu canaanataa inaanan ku kalsoonayn. Kolka aan kalsoonideeda aan tuso ee weydiimaana aan ka dhooro, waxay igu hiiftaa hinaasa aanan ka mudnayn. Kolka jacaylkii iyo hinaasi meel aan la istaagana, waxay igu tiraahdaa aanu saaxiib noqono. Guru waxa uu tilmoon yahay kaseeskiisu saaxiibtinimada ku dhisan yahay. Saaxiibtinimadaydi markii aan ugu deeqayna xidhiirkayga dhalmo ayay dhalayshaa. Kolka aan dhanka aan ka soo dhaldhalaalana, waxay igu hiiftaa aadame matiide orgi qooqan ayaa tahay. Koonfurta Masar ayaanu deganayn. Sida ugu cabsanaysa ayaan kasoo wareegnay ee caasimadda Qaahira ayaan soo saldhiganay. Iminkana deegaankan cusub way ka cabsanaysaa oo waxa ay jamanaysaa carriga Maraykanka in ay dagaalansato. Goor iyo ayaan murug ayaa ku gadaaman hankeyda iyo himiladeedu heer xanuun ayay gaadheen. Kulliyadda suugaanta in ay ka sidato dibloom afka Ingiriisiga ah iyo sideedoo kalena maalin barhka ay shaqayso. Waxa ay gacaloonaysaa wax kasta oo ay jamato horteeda in ay ka hesho iyadoo ay taasu jirto. Haddana bil kasta horraanteeda sidii gabadh gurigeeda fadhida oo aan u soo shaqaynayo ayay iga sugtaa in aan biilo. Hadiyo jeeraale gurigaygu wuu qasan yahay. Gabadh shaqaalaha iyo nin cunto kariya ayaa noo jooga. Intaas waxaa dheer hooyada oo guriga shaqaale ka ah ubadkana xanaanaysa. Maanta hooyada waxa ay ku jirtaa da'dii ay nasan lahayd. Haddana marmarka qaarkood waxa aan arkaa muuqaal aad iga naxiya. Waxaan aan dhehdaa hooyada oo dhabta ay kaga fadhiyaan 2 carruur ah, halka xaaskaygii iyada oo wargeys Faransiis ah daalacanaysa ay sariirtaysaga fadhido markay shaqada ka soo laabato. Muddo dambe waxaan garwaaqsaday in xaaskaydu tahay oo riixun oo aan ku soo lugo'ay. Ma garanayo qaabkii ay naftayda ula dhaqmi lahayd. Aqoontay baratayna way intifaacsan lahayd, anigana ay ii dhaqi lahayd. Sidoo kale aqoontu waxa ay tahayba uma bilowna, balse waxa isweydiin mudan, anigu maxaan galabsaday liiga jaraya. Xalkuse muxuu yahay? Haddaba daawade qisadan wixii kaaga baxay cibri qaadasho iyo jawaabo ku habboon. Muuqaalka ku xigta waxaan ku soo qaadan doonaa qisadan iyo waxyaabaha halmaama bulshadeena Soomaaliyeed haysta. Jawaabkii ku habbooneed uu siiyay Dr. Mustafa Maxamuud ilkan qisada la soo gaagay. Qisadan muuqaalka ku xigta inta isugu imanno. Wassalaamu calaykum.